عادينا أذقلي عزنا ودفاع ديو بدلا عرض ديو أبدعي لمدننا وصلوا دعونا دولة بوتلان مدن سعيد عبد الله الدري دوميها محكمة السنة دوميها حسن عليها جود وزيرها عمنا كسر عقلها وزيرها تلياشة إذا مرة تلياشة مسؤولين تكره سنة سكدير يكون حجنادي سعيد كأسلوبته صحافة دمانتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المدن مدحوينه maanta halkaan waa maalin weyn oo taariikhi ah oo maalin ka mid ah maalmaha ugu muhiimsan oo qayb ka mid ah shaqadii dawladda Puntland ee ahayd nidaaminta iyo tayeynta ciidamada qayb ka mid ah maanta goobjoog u nahay oo tababarka soo dhamaystay madaxweyne la socotay siyaasadda waddanka ku hogaaminaysid oo ah in la tayeeyo ciidamada dalka la hagaajiyo kor loo qaado aqoontooda iyo xirfadooda amniga waddanka la hagaajiyo cadaaladda waddanka kor loo qaado kadibna waddanka loo jiheeyo inuu aado oo gaaro doorasho qof iyo cod ah iyo hanaan dimuqraadi ah annagoo ka doonayna ama ka ambaqaadayna aragtidaas nagu hogaaminaysid ayaa ciidanka asluubta taliyaha iyo ku-xigeenadiisa wasaaradda cadaaladda waxay iska kaashadeen sida ciidanka asluubta loo tababari lahaa loo tayay lahaa sida ciidamada kale oo dawladdu tababaray oo la nadaamiyey sida daraawiishta booliiska in kuwaana laga dabageeyo oo ay noqdaan ciidan ka soo dhalaali kara kaalinta ay ku lahaayeen ka qayb qaadashada howlaha dawladda sidaan la socono madaxweyne ciidanka asluubtu waajibaadka ugu horeeya waxa weeyaan oo saaran ilaalinta akhlaaqiyaadka bulshada la macaamilka maxaabiista ilaalinta xuquuqul insaanka waana aragtida guud ee lagu hagaajin karo cadaaladda ummadda iyo habdhaqanka bulshada iyo ku dhaqanka diinteenna suuban annagoo taa ka ambaqaadayna maanta halkan waxaa sida taliyada sheegay jooga ciidan tiro badan oo lagu tababaray shuruucda waddanka u degan ilaalinta xuquuqda aadanaha macaamilka maxaabiista sida xabsida loo maamulo iyo ka qayb qaadashada shaqada qaranka ee ugu horeeya amniga cadaaladdu mudane madaxweyne waxaan kugu soo dhaweynayaa